soo dhawaada insha allah. aad baa idin wada salaamaya dhammaantiin. ayay waa ku salaam raxmo, soo dhawaada kulligiin. soo dhawaada insha allah. dad badan baan u jeedaa, soo dhawaada. soo dhawaada, haba waa ku salaamihiyo. rooble aad baan kuu salaamay, dhammaantiin waa idin wada salaamayaa. soo dhawaada, sheer garaya barnaamijkan. waa barnaamij yaroo muhiima insha allah. sii daaya sheer garaya barnaamijka. waa la soo daynayaa, ha degdegin. allah yacizakum. waa wareey duqbilow waa ku salaamay. sheer ku qaba duqbilow insha allah. inaan ku soo qabta ayaan isku dayaya hadduu ilaahay yidhaahdo. cabdirasaaq maxamed duqbilow. ajar baa la faa'iidaya. barnaamijkan waa ajar oo waa digniin ku socota dadka soomaaliyeed waddankii jooga oo aan wax badan la soconin. marka insha allah soo dhawaada. shankaroon abdi rooblo magacaas fiiri si fiican insha allah. bashiir in abti waa ku salaamay. geenyahin carab, geenye cabdi carabe, adiguna woolkay ku meerayso. aad baan kuu salaamayaa. okay, waa bilaabaya mar dhow barnaamijka. meel baan yara aadi lahaa, time badan baan haysanin. okay, deeq cumar waa ku salaamaya saaxiib. bila cabdinuuraad baan kuu salaamayaa kulligiin. okay, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنت مقعي موقعي تقانبا dadka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaalkiin cabdixakiin cusmaan nuur oo ku magacaaya sheekh Soomaali, xerta shiikha magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota. inta magacayga muuqayga taqaanaba, inta i necab, inta i jecel, inta i taageersan, dhammaantiin waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijkaygan maanta wuxuu ku saabsan yahay digniin ku socota dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga, khaasatan Puntland, Somaliland iyo Muqdisho. saad ogtihiin maamada la yidhaahdo milyuun ee ka qaxday gobolka Minnesota. run ahaantii maanta sharxaad badan uma baahna. dhammaan waxyaalaha dhaqan xumada ah, diincayga, nebicayga, wiilasha Soomaaliyeed ee naasaha samaystay khaniisiinta noqday, dhammaan qofkii soo dhiirigeliyey ee soo saaray iyada ahayd. maamadaasi saad ogtihiin dhibaato weyn ayay diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeedba soo gaarsiisay. waanaad la wada socotaan. qof maanta uu ka daahsan yahay arrintaasi ma jirto. waxaynu nahay dad muslima, waxaynu nahay dad sunniya 100%. waa jiraan shakhsiyaad Soomaaliyeed oo diinta ka baxay
ama qaab ha uga baxaan inay sharci ku helaan, ama qaab ha uga baxaan inay hunguri ku helaan, ama qaar shaydaan duubsadayba. waa ogtihiin dadka islaamka ah ee sunniyiinta ah waxaynu nahay dadka ugu adag. gabdhaheenna soomaaliyeed, iyadoo ad ogtihiin gaajada iyo baahida soomaaliya ka jirta, ayaa haddana barnaamij laga diyaariyey oo aljaziira ay ka diyaarisay ayaan maalin dhegaystay. kulli waa wada xijaaban yihiin. kama dhacdo caalam alislaam, khaasatan wadamada carabta, in dumarkoodu ay wada xijaaban yihiin. halkaas waxay ku cadaynaysaa in dumarka soomaaliyeed ay sunnadii ku taagan yihiin. xijaabkuna waa wax ilaahay soo rogay oo uu ku yiri qur-aankiisa, yaa ayuha nabiyu qul liaswaajikum wa banaati wa nisaai lmuminiin yudniina calayhina min jalaabibihinna. okay, maamadan dhibaato weyn oo dhaqan xumo ah ayay bulshada soomaaliyeed kusoo kordhisay, khaasatan social media. waxa ay faafisay fusuq oo dhan. waxaa soo dhiirada wiilar soomaaliyeed oo shaydaan duufsaday oo kulligood hadda soo wada balamgareeyey oo yidhi abtiyaal baa na wada kufsaday. bal u fiirsada, wiilasha soomaaliyeed ee khaniisiinta noqday kulli waxay wada leeyihiin abtiga baa isoo farxmeeyey iyo malcaamad qur-aan baa lagu soo farxmeeyey ama masaajid. taasi waa damage loo geysanaya diinta islaamka. qofkii dhiiri geliyey ee soo saaray ee waxaan sameeyey ee keenayna waxay ahayd iyada. dad badan oo soomaaliyeed oo weliba haween u badan oo qaarkood aanba diin bahaysan ayaa dhiiri geliyey oo lacagyo ku siiyey. alxamdulilahi rabbilcaalamiin. gobolka minnesota waa gobolka ugu badan, masaajidada ugu badan waddanka maraykanka ay ku yaalaan, soomaali badanna ay degan tahay. dhaqan xumadeedii markii loo adkeysan waayey waxaa lagu guulaystay in gobolkan laga saaro oo ay ka cararto. dadka soomaaliyeed ee gobolka minnesota masaajidada weerar ku qaaday, iyadoo dabagaab gashan bay tagtay, culimadii bay tiri islaama. waxyaalo aada iyo aada u badan oo dhaqan xumo ah ayay ka samaysay gobolkan. aakhirkii waxaa lagu guulaystay in ay ka cararto magaalada. okay, malyuun hadda waxay safar ku aaday soomaaliya. haddaba waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheega maanta safarka malyuun ee soomaaliya muxuu ku aadan yahay. dadow dhagihiina fura, khaasatan somalilan iyo puntland baan la hadlayaa. hay-adaha anshaxa dad badan baan la xidhiiray oo madaxa, welina xidhiirkii waa wadaa sidii looga hortagi lahaa. malyuun waxay qortay buugga waxay ku aflagaadaysan nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam. waxay ku aflagaadaysan diinta qur-aanka, diinta islaamka. waxay ku aflagaadaysay qur-aanka. waxay ku aflagaadaysay masaajidada. waxay ku aflagaadaysay dhammaan malcaamadaha qur-aanka ah. waxa ay balamgaraysay oo ay tiri waxaa laygu soo kufsaday malcaamad qur-aan, waxaana ay kufsaday 3 nin oo abtiyaasheeh oo qur-aanka dhiga. malcaamad qur-aan. malyuun buuggii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam way ku aflagaadaysay. waddanka maraykanka aad ayaa looga taxadiraa, sida yurub oo kale maaha in dadka diimaha kale nooca haysta la iska hor keeno ama la caayo diinta. aad baa looga soo horjeeda. waddankani maaha sida yurub oo kale laguma dhiirin karo. buuggeeda guddi baa loo saaray. waxaa la arkay in khaladaad badan uu ku jiro oo diinta islaamka ah, oo ay cay badanna ay ku jirto. adigu qolooyinkii buugaagta qiimeynaya waxay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa, waxay ku soo qaadatay buugga oo ku jira qayb ka mid ah wiil soomaaliyeed oo yiri hargeysa laygu kufsaday oo la yiraahdo kuwin saleena la baxay. wiilkaas oo yiri malcaamad qur-aan baa laygu kufsaday, masaajid baa laygu kufsaday, dariskaygaa kufsaday. wuu ku jiraa buugga, qoraaladeeda uu ku qoran yahay. waxaa la yidhi goobihii uu ka dhacay shilkani aad sheegaysid waa inaad tagtid oo aad soo sawirtaa oo aad keentaa. qolooyin u dooda qoomaluudka dadka khaniisiinta isku galmooda iyo qolooyin iyaguna dadka diinta islaamka aadka u necab ah oo fadeexadeeya ayaa xoogaa dhaqaale ah siiyey. malyuun afkeeda waxay ka qirtay oo ay soo fariisatay baraha bulshada in ay ka baxday diinta islaamka. welina ma hayno meel ay kusoo noqotay oo ku ashahaadatay ama ashahaadada loogu qabtay. waa wada ogtihiin, wax la iska indhatiraya ma. waxaa lagu xidhay buuggii. waxaa la rabaa sawiro lagu soo dhajiya buugga oo caddaynaya waxyaalahan ay ku andacoonaysa sheegayso. saan idiin sheegay, buugga bejkiisa 22aad waxaa ku qoran kuwin saleena in lagu kufsaday masaajid ku yaala magaalada hargeysa iyo malcaamad qur-aan.
dhagaha furo Soomaaliya dhageysta iyo malcaamad quraan iyadan in lagu kufsaday masaajid iyo malcaamad quraan oo ku yaala Puntland waxa la goobihii tag soo sawir soo naduub waa inaad keentaa sawiro mali waxay safar ku tagtay waddanka Imaaraadka Carabta dhowr masaajid waa laga soo cayriyay waa isku dayday laakiin waa ku guuleysan weeyay Nairobi dad badan bay sawir ka soo qaaday kuwaas oo ay ku sheegi doonto loo buugeed ku soo dhajin doonto oo ay leedahay waa dad la farxumeeyay okay hadda waxay ka degtay Garowe fariinta aan diraya waxay tahay dadka Soomaaliyeed islaantaas waa islaan shaydaan dubsaday ehelkeedu waa dadka ugu sharafta badan gobolka Minnesota degan waa dadka ugu dhaqaalaha badan maalintii ay soo galaysay social media waxay ku soo gashay iyadoo ooyeysa oo dhahaysa waxa ay dilay wiilkayga wiilkeedu markaa wuxuu ahaa arday maanta wuu xanuunsanayaa maskaxiyan wuu isku dhaxyaacay sanadka bacda ayay soo fadhiisatay waxayna sheegtay in wixii ay sheegayso dhami ay been yihiin oo wiilkeeda ay ka been sheegayso qof kasta oo Soomaaliyeed labada fiidiyoba uu arki karaa wuuna eegi karaa run ahaantii milyuun dadka Soomaaliyeed waxay moodayeen markii hore qof xiska wax uga dhiman yihiin laakiin ma aha hungurigii ayaa meel xun ka galay oo ay ka raadisay fariintan aan maanta u soo fariistay waxay tahay number 1 waxaan fariinta koowaad u dirayaa shacabka Puntland khaasatan magaalada Garowe oo maanta airportka laga celiyay oo loo diiday laakiin markii dambe la sii daayay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed reer Puntland waxaan leeyahay qof kasta horta waxaad ka taxadartaa sawra ay ka soo qaato oo hadho buugaas lagu soo qoro waxaan aadan ka qaban karin adoo Soomaaliya joogo oo lagu leeyahay waa la farxumeeyay abtigiisa farxumeeyay ama malcaamad quraan baa lagu farxumeeyay ama iimaan baa farxumeeyay waa damage loo geysanaya diinta islaamka qolooyinkii tigidka ka bixiyay ee diray waa waxan laga soo shaqeeyay waxa la doonayaa in masaajidda ku yaala Soomaaliya Puntland iyo Somaliland la soo sawiro oo la yiraahdo waa meelihii damage loogu geystay dadka shacabka reer Puntland khaasatan reer Garowe waxaan uga digayaa in goobaha cibaadada khaasatan masaajidada malcaamadaha quraanka laga dheereeyo maamadaas si ayna sawir uga soo qaadin dumarka Soomaaliyeed waxaan uga digayaa Garowe ku sugan inay iranta ka taxadaraan arintan waa arin aad iyo aad serious waxa kama qaban kartaan qof Mareykan jooga uu ka dacwoon karaa hadduu sawirkiisa ku arko book oo waliba laga been sheegayo oo la leeyahay waa la soo kufsaday oo macalinkiisii ama abtigiisa kufsaday wuu ka dacwoon karaa qofka Mareykanka jooga wuu ka dacwoon karaa okay isuga qof baan qabanayaa okay qabtay qofka Mareykan jooga hadduu sawirkiisa ku arko buugaas wuu ka dacwoon karaa laakiin qof Soomaaliya jooga kama dacwoon karo hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaan uga digayaa in ay ka taxadaraan sawiro ay ka soo qaado oo buugaas lagu soo dhajiyo wasaaradda cadaaladda iyo anshaxa iyo garsoorka ee Puntland iyo ciidamada ammaankaba fariinta waxaan u dirayaa inay ilaaliyaan sumcadda diinta islaamka iyo sumcadda maamulka iyo dadka deegaankaba oo aan shilimo yar oo Nabi Maxamed lagu aflagaadeynay calayhi salaatu wassalaam iyo diinta islaamka lagu aflagaadeynay sawir lagaga soo qaadin malcaamadaha iyo masaajidada gabdhaha marwooyinka kuwa la qabo iyo kuwaan la qabinba waxaan uga digayaa inay ka dheeraadaan qoftaas sumaysan lama oran karo maamo waa masiibo lama oran karo waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed horta fariintaasaan u dirayaa reer Puntland waxaan rabaa inaan u soo jeesto haddaba reer Somaliland
waxaad ogtihiin in ninkii la oran jiray Queen Salena uu yiri malcaamado iyo masaajida boqol hadal oo kala nooc ah uu sheegay uu yiri waa laygu kufsada marka meesha u socotaa waa dad badan oo Somaliland waliba Hargeysa ah oo sawir laga soo qaadi doono oo masaajidada ay ku jiraan malcaamadaha ay ku jiraan iyo xaafadahaba iyagana waxaan uga digayaa in ay ka taxadaraan oo ay iska qabtaan waad ogeydeen dabcasar ayaa si sharaf leh loogu soo dhaweeyay jamhuuriyadda Somaliland waa la sooriyay si sharaf leh baa loo soo dhaweeyay aakhirkiina wixii cay iyo ceeb dhacay waa idinkii arkay marka waxaan uga digayaa insha Allah xiriir baan la sameeyay dad badan oo mas'uuliyiin ah oo maamulka Somaliland ka tirsan garow xitaa wala hadlay arrintanna waan ka hortagayaa insha Allah ballanqaadyo badanna waa haystaa garowna waxa ka fuleen reer Somaliland waxaan u sheegayaa arrinta inay ka taxadaraan kaamaraday wadataa maamadan ay waxaas ku qaadaso malcaamada ku soo sawirayso diinta islaamka ku aflagaadeynayso anshixi iyo asluubti dadka Soomaaliyeed meel uga dhacso marka taasna inaad ka taxadartaan ayaa loo baahan yahay waliba waxaan wada qorshe ah in airport laga celiyo magaalada Hargeysa oo ayna gelin insha Allah bidnillah kariim hawshana waa ku jira dadka Soomaaliyeed waxaanu xaq u leenahay inaynu difaacno diinteena dhaqankeena iyo sharafteena waxaan u jeedaa ayaan bedel oo soo qorso kufsiga waa jira ayaan raar waa run kufsiga waa jira laakiin sida looga beeshay kulligood ma abtigooda soo wada kufsaday maxaa abtigood u wada geeyay kulli yani waxaa jira waxyaalo badan oo ka badbadisa oo la arkayo oo loo wada jeedo ayaa jira marka buug lagu aflagaadeynaya nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam oo la leeyahay diinta islaamku waa diin kufsi diinta islaamku waa diin kufsi saas weeye buuggeeda waxaa ku qoran aflagaadooyin badan oo nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam uu ka mid yahay loo geysanay horta ma soo baxayo dadka Soomaaliyeed tii ugu dambeysay ee lagu xiray waxa weeyaan in ay keento goobihii ay hawshaani ay ka dhacday goobihiina waxay noqonayaan inay soo sawirto dumar Soomaaliyeed oo hooyanimo ugu yimaada oo ay tiraahdo kulli waa la wada faraxumeeyay ama malcaamada quraan ama caruur ay leedahay intay siiso dollar ma lagu fuulay waxyaalaha soo badan bay soo wadaa marka dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan maamadaas laga taxadaro oo waa maamo shaydaan duufsaday ma xanuunsana iimaankeedii wuxuu noqday lacag iimaankeedii iyo diinteedii iyo dhaqankeedii iyo awlaadeedii iyo wax walba sumcadeedii wax walba waxay dhaafsiisatay lacag diinteedii lacag bay dhaafsiisatay marka arrintan aan maanta u soo galay waliba iyadoo ay tahay maghrib aan u soo galay waa arrin aad iyo aad u muhiim ah dadka Soomaaliyeed dhagaha furta sawiradiina yaan lagu soo dhig waxa kama qaban kartaan hadhow hadduu buugaas intuu soo baxo aad aragtaan adigoon waxba lagu kufsanin adigoo gabara adoo sharaf leh oo lagu soo dhajiyo hadhowna meelaha lagu wareejiyay waxaad ka qaban kartaa dad Soomaali joogta ma jirto laakiin dad Mareykan jooga laguma soo dhajin karo mana lagu samayn karo marka insha Allah bidnillah kareem caruuraha laga ilaaliyo malcaamadaha quraanka laga fogeeyo goobaha cibaadada masaajidada laga fogeeyo hana laga taxadaro arrintan waa arrin aad u muhiim ah dadka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan diinteena dhaqankeena iyo sharafteena aynu ilaalino diinteena iyo dhaqankeena iyo sharafteena aynu ilaalino marka dhamaantii saasaan idin rajaynayaa khayr haddii Ilaahay yiraahdo waxaan isku dayayaa waxaan soo qabanayaa
ها ما هذا صح. اوكي وابصا قبانا يا اوكي سوغا. اوكي halkan aan ka soo qabanayaa. Hello. Hello. waa ku soo qaban kar waa halkan messengerka ma iga soo wacaysaa? Hay. Okay, iga soo messengerka. marka aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin meel kasta aad joogtaan shacabka Soomaaliyeed. raalliga ahaada cilad farsamo xoogaa yara haysata. marka waxaan idinka digayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan arrinta ayaa la saashanay khaasatan ciidamada asluubta iyo ciidamada bilayska oo dhamma ka hortagaan dawaakaas insha Allah. بشير واكو سلامي. اوكي 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 waxaan soo qabanayaa duqbilow hadduu ilaahay yiraahdo oo barnaamij waxaan soo qabanayaa duqbilow oo barnaamijka si fiican ula socday. duqbilow ku soco. uga garadaadka ku salaamaya waan daawaray barnaamijka. marka buugan
buuggan marka ma waxaa la rabaa in lagu dacaayadeeyo diinta islaamka mise ummadda soomaaliyeed maya buuggu laba arrimood buu ku socdaa. buugga horta qayb ka mid a nebi maxamed baa lagu aflagaadeynaya calayhi salaatu wasalaam. qayb ka mida waxaa lagu aflagaadeynayaa diinta islaamka, malcaamadaha qur-aanka iyo masaajidada oo la leeyahay waa meelihii lagu soo kufsaday wax. marka arrintu waa saas, waana daawanaysa barnaamijka ku soco. waa lagu maqlayaa, ku soco. wani arrinta aad baan u cambaareynayna ummadda soomaaliyeedna inay ka digtoonaataan aad uga digi lahaa wax diintanada qadaf u keenaya ama diintanada dhaawacaya kolley dee anigu ma soo dhaweynayo ummadda soomaaliyeedna inay soo dhaweysana ma ogolaan lahayn. haddii masaajidada iyo magaranaysaa malcaamadaha dugsiyada qur-aanka lagu dhigto magaranaysaa xaaladooda laga dhigayo meel carruurta lagu kufsaday waxyaaba dhacaase gaalada laga gadayo arrin wanaagsan ma aha. ummadda soomaaliyeed waxaan dhihnaya in diinta waa meeshaan u carreynay aanaan nalagu dirin yeesan diinta nala nacsiinin oo la dhihin diintu waxaa weeye iyo masaajidada waa meelaha laysku kufsado. arrin aan ogolaanayno maaha, marnaba arrin aan soo dhaweynayno oo kuwii salaysa iyo fuaad makeup laga ogolaanaya haba yaraatee maaha. duqbilow waad og tahay nin aad social media ugu jiraa tahay. tan iyo maalintii dhaqan xumada ay soo baxday social mediana waad ogeyd. wixiina hadda waxay galeenba masaajidadii, waanad u jeedaa. dadka soomaaliyeed maxaad fariino u diraysaa safarka maamadan see looga hortagi karaa, wax looga qaban karaa? sugaa go-ay. raalli aho, waxaan su-aasheedu waxay ahayd nin social mediaha ku jiraa tahay, waad og tahay maamadan intay meesha kusoo korodhayna dhaqan xumada soo gashay, wiilal badan oo soomaaliyeed oo naasa samaystay dhaqan aynaan ulahayd, diintii oo la caynayo, nebigii oo la aflagaadeynaya calayhi salaatu wasalaam. safarka maamadanna wuxuu ku salaysan yahay hadda sii ballaarinta hawshaas. maxaa fariina oo dadka reer soomaaliya, somaliland, puntland aad u diraysaa? wadiya waad mahadsan tahay. horta maamada aad baan u taageeri jiro hadda ka hor de waad la socotaa baan u malaynayaa. waa ogahay. hooyo soomaaliyeed inay ahayd baan ku taageeri jiray oo aan magaranaysaa ku garab istaagnaana oo rag badane. xaaladdu haddii ay noqoto in diinta laga beesheegay iyo masaajidada wax aan taageerayna ma. shacabka soomaaliyeed sida hadda garaadka uu sheegay la rabay masaajidada lasoo sawiro oo qolooyinkan gaalada ah iyo qolooyinkan qoomuluudka u doodayo ay rabaan inay diintanada caayaan ay cambaareeyaan. waxaan dhihi lahaa culummada ha ka digtoonaato, yaana la sawirin. ogow qof walba oo bartaa sawir looga soo qaado sida hadda garaadka uu sheegay waxaa la dhigayaa museumyada ama meelaha madxafka lagu kaydiyo. qolooyinkani hadda ay samaysteen baa la dhigayaa. cid kaa saaraysana male aakhiriya adduun. ummadda marka waxaan leeyahay ha ka digtoonaato hadday arrintaasi ay soo baxdo. waxaanu leenahay maamadana waan u naseexeynaynaa, diinta waa diintaadii. in la barbagandeeyo ceeb laga sheegana dee ummadda islaamku mid ay ogolaanaysa maaha. ummadda soomaaliyeedna aad baan u salaamaya, arrintaasi aad iyo aad ha looga fujignaado. aad baan kuu salaamaya. aad baad u mahadsan tahay duqbilow, aad baad u mahadsan tahay. thank you so much, jazaakum allah khayr. kaasi wuxuu ahaa duqbilow oon soo qabtay khadka laynka. wixii raba inaan soo qabto messengerka waa iga soo wici karaan, waana idinka qabanayaa, ballan weeyaan. waa soo geli kartaan qofkii raba inaan soo qabto, isoo wac. okay lii xaaji okay. lii xaaji, asalaamu calaykum. وعليكم السلام. toos baad ula socotaa baan u malaynayaa barnaamijka. si fiican ula socdaa. si fiican ula socdaa programka. walaal sidaad la socotid waxaa jiro kambaniyo shirkado Soomaaliya ka shaqo galo, gobol walba ka shaqo galaan. gobol walba ka shaqo galaan waxay ku faanaan annaga Soomaaliya waxaa noo joogaan 500 oo nin oo diinta gaalada faafiso. 500 qofood oo diinta gaalada faafiso. masaajidada iyo dugsiyaasha waa la kubsaday iyo waa la qabsaday ma jiro, laakiin hal mid
أجرتو أورون لقى شيء كرو دبسياشة دبسيدا معلمين تا وحي سميان قبلها السوق عن جارو ومهرسدان قبل أنا عن أبتو أهي هرجيسا لقو مهرسدي هرجيسا لقو مهرسدي أو عندنا لقى صوت دونا أيضا أقول لنا حد يرسمنا عن كذا لكن واحد أو قبسة يقبسة شو هرت مجرو ninka hadduu xalaal u guursado macallimiin badan way jiraan oo guursaday gabdhihii ama soo doontay way jiraan laakiin arrintan kale ee diinta la wareejinayo waa arrin qadaraad lagu soo qaatay waana kugu taageerayaa inaad hor tagtid wallahi billahi tallahi gobol walba oo Soomaaliya ka tirsan ayay ka shaqeeyaan ayagoo kambani qanisiina ayagoo kambani gaala ah ayagoo kambani lesbiana wax walba haddaad xasuusatid 2000 Cabdullaahi Yuusuf ayaa ka talinayay Puntland markoortiyaas gabar waxaa jirtay Maariya la dhaho oo Mareykanka ka timid oo saan oo kale u timid Boosaaso oo gabdhihii oo dhan fadreysay markii la qabtay oo la xiray maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho saaxib Canada laga soo wacay waxa lagu yiri hay-ad waay annaga noo shaqaysa Maariya lama dhaho Maariya la dhaha Soomaali maaha waa naag Canadiana saaxib xabsi ka soo daa waxa wadiin kartaa dhamaan saraakiishii xilligaas joogay ayaa wadiin kartaa marka niyo maalinba qof in lagu soo gambado oo marna iska dhigo qof dhibaataysan oo markii loo beerjileecana oo gabdhihii iyo dadkii oo qalbiga jilcana ay duleeyaan waxa u dul qaadan karna ma aha aad baad u mahadsantahay liibaanow aad baan kaaga hambalyeenayaa arrinkan inaad ka hortagtid waan kugu taageerayaa walaal arrinkan annagana waa kala qayb qaadanaynaa adiga waa ninka maxkamadda dhalinyarada adiga noo ah oo cadaaladda ka shaqeeyo qof walba dhibkiisa soo gudbiyo baraada waan kugu taageeraynaa arrinkan xoogga saar in dad badan oo isqarinayaan ay jiraan waqtiga soo bixi doonaan ogaan doonee arrinkan xoogga saar aad iyo aad baa umahadsantahay thank you so much Mr. Liban lii xaaji aad baa umahadsantahay okay qofkii raba inaan soo qabto waa isoo wici karaa waa idinka qabanaya insha allah aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa meel kastaa joogtaan samsam dayax okay rooble xasan mase rooble ku soo dhawow waa lagu maqlaa rooble assalaamu calaykum codkaaga kor u qaad wacalaykum salaam si fiican aan ku maqlaa adeer programkan waa la socday haye dishaan kaala soo hadlaya haye maamadana warkeeda waa laga naqsan yahay haye dareen qoshanana diyaar baa unahano yaan habartaa meel iska saarno habad mejisaa weye haye hadalka waxaa kusii dheeraan maaye ballanteena waa saas insha allah aad baan kuu salaamayaa kolay dhalinyarada muqdisho uga dig hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahay khayr fara badanna ha ku siiyo okay thank you waxaan soo qabanayaa zamzam dayax hadduu ilaahay yidhaahdo si ay fariin ugu dirto shacabka reer Puntland zamzam dayax السلام عليكم وعليكم السلام كسو دو برنامجك واد la socotaan u malaynayaa إنا لله وإنا إليه راجعون codkana kor u qaad xoogaa culimada Puntland waxaan ka codsanayaa ciidamada asluubta ciidamada anshax ilaalinta dhalinyarada hooyooyinka faasiqa lala wareegayo in la iska ilaasho habartan masaajidyada rabtaa waxay tirgalaati baa la igu korsaday Ethiopia weeyaan hadda waxay rabtaa buuga inuu ku soo sawirato Puntland masaajidyada hala iska ilaasho burwooyinka ay isku sawir halaga dheeraado ciyaalka halaga dheereeyo shaqamada iyo kaniisadaha ay lacagta ka soo qaadato wala xawli wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ballan hay ma sha Allah hay maxaa kale oo aad fariin diraysaa waxaan dirayaa hala iska soo saaro aad iyo aad baan kuu salaamayaa dhammaantiin aad maasantahay samsam dayaxay
okay waa ka baxayaa barnaamijka hadduu ilaahay yidhaahdo waana soo gabagabeynayaa ballanteenu waxa weeye ha laga taxadaro arrimahaasna ha la iska ilaaliyo sawiradiina yaan buuggaas kusoo bixin yaan kaamarada idinku xadin khaasatan gabdhaha soomaaliyeed ee soomaaliya joogan waxba ogeyn malcaamadahana ha laga ilaaliyo ciidanka asluubta wasaaradda cadaaladda awqaafta meel walba waxaan u sheegaynaa maamulada soomaaliya ka jira oo dhan in arrintan ay ka taxadaraan insha allah bidnillaahi kariim aad baa dhammaantiin u mahadsantihiin meel kastaa joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu